Assalaamu calaykum. Wax ka ogow damaca maasuuniyadda ee dhulka Soomaalida. Sheekadan waxaa ka hadlaya nin Soomaali ah oo Yuhuudda ku biiray ka bacdi maasuuniyadda lagu daray oo dhulka Soomaalida loo soo adeegsaday. Markaa wuxuu ka soo ogaaday siro iyo xogooyin badan oo ku saabsan dhulka Soomaalida iyo dhulka Shaam. Markaa daawasho wacan. wuxuu ku bilaabay sheekadiisa waxaan safar gaaban ku imid magaalada London anigoo u socda ka qaybgalka xalfada aroos oo ehelkayga ah 3 cisho markaan joogay ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan urur kamida kuwa sida qarsoon u shaqeeya wuxuu igu ballamiyay maqaaxi ku taal South Kensington oo la yiraahdo Kelly's Bakery waan imid anigoo warwar yar igu jiro oo isweydiinaya wuxuu iga rabo markaan cabaar fadhiyay ee aan buniyo macmacaan meeshii ku cunay ee aan kolba saacada hoosta ka eegayo waxa si kadis ay soo dul istaagay nin cad wuxuu ii sheegay in la ii soo diray oo ii qaadayo hodheel waan soo raacay gaadhigii oo waxa uu keenay hodheelka Riverbank oo ku yaala bartamaha London qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si diiran iigu soo dhaweeyay hodheelka wuxuu ii kaxeeyay qol ay albaabkiisa ku qoran tahay tirada 322 ama 322 qolka markii aan galay ayaan sariirta ku dul arkay suud madow shaadh madow iyo kabo madow waan meedhay sidii la ii tilmaamay ayaan dharkii madowga ku labistay cabaar ayaan daawaday London oo toos ugu beegneed daaqada qolkan ku jiro waa meel kamida meelaha ugu bilicsan magaalada London dalxiisayaal badanna waa joogan gobolku sii dhacaya ana wali waxaan taaganahay daaqada garaac xoogan ayaa albaabkii la iga soo tumay haddana waa la iska furay anoo yaaban ayuu igu yiri mudane waxa bilaabaysa soo dhaweyntaadii waan soo raacay waxaan u fariisay miis madow lagu sharaxay shaqaaluhu dhamaan dhar madow ay ku labisan yihiin miiska waxa saaran khamri cas iyo waraaq sida saddexgalka u taal oo ay ku qoran tahay welcome to the brotherhood iyo sidoo kale waxa taal hees magaceedu yahay welcome home markiiba gabadh dhar madow xiran ayaa masraxa soo fuushay waxa bay qaadaysaa heesta midhaheedu ay miiskayga saaran yihiin waxa kamid ah eryadeeda welcome to where time stands still no one lives and no one will moon is full never seems to change just label it heeskaas oo ilaab qaaday misana cabsi ugu abuurtay ayuu mid madow ii yimid isagoo madaxa hoos u foorarinaya ayuu igu yiri mudane waa ku diyaar gaarigii ku qaadi lahaa dabaqa hoose hodheelka ayaa la geeyay waxa igu sugaya gaari kala jiidan markaan gudaha u galay waxaan kula kulmay saaxiibkay waan ku naxay oo waxaan ku uri waar maxay sidan tahay isna waxa igu halceliyay waadigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee codsigaaga 2 jeer ba ay diideen Club of Rome iyo Scottish Temple hadda waxa timid fursad aad isku muujin karto haddii aad daacad ka noqoto hawlaha lagu igmanayo waxaad heli xubinimo buuxda magaalada waan ka sii baxaynaa waxaan gaarnay dhismo dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabayso qaabka loo dhisay saaxiibka gaadhigii ayuu ku hadhay anna 2 nin oo xiran dhar madow oo ay qoortooda suran tahay 3 gees cas ayaa intay garbahay qabteen ayay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiinka qura ee ka baxaya yahay shamac waxa goob madow soo fadhiya nin darajadiisa tahay 330 oo magaciisa igu sheegay Paul wuxuu weydiiyay inaan ku qanacsanahay inaan ku soo biiro ururkooda Dark Marow anna hore ayaan ka aqbalay habeenkii halkaas ayaa xalfad weyn la igu sameeyay 3 habeen kadib anigoo sidii meesha ugu jira ayaa Paul ii kaxeeyay qol madow deeto ilaas ayaa lagu qabtay gidaarka waxaana la i tusay khariirad madow oo cad yihiin 2 meelood wuxuu weydiiyay Paul 2 meelood ee cad maad garanaysaa waxaan ku uri mid waa geeska Afrika ta kalena waa bariga dhexe Paul ayaa igu yiri waa dhulka Soomaalida ta kalena waa Shaam wuxuu ii raaciyay in khariirada la sameeyay shirkii Berlin ka dhacay ku 884 wuxuu kaloo ii sheegay arrin argagax igu riday Paul wuxuu yiri shirkaas waxa fadhiyay kii samada ka soo dhacay markuu arkay in aan fahmin ayuu igu macneeyay idinku sheedaan ayaad u taqaanaan wuxuu noo sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shaamba ay yihiin labada nuur ee u baahan in la dagaalamo si qorshaha iyagu u fulo la soco qaybta labaad mashruuca la dagaalanka nuurka haddaad ku cusubtahay channelka xikmad goob subscribe ku qabo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh